xarunta aqalka hoose ee maamulka gobolka Banaadir ayaa ku waramay in goorsii horeyso oo galabta ah inuu ka dhacay qarax xoogan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay gudaha xarunta, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in qof isu soo miidaamiyay uu isku dhex qarxiyay xaruntaasi oo la sheegay in xilligaasi uu ka socday shir looga hadlaya amniga caasimadda dalka ee Muqdisho. wararka qaar waxa ay tilmaamayaan in dadka dhinta ay ku jiraan gudoomiyayaal degmo ha yeeshee gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay khasaaraha inta uu la egyahay ee qaraxaasi, waxaana uu xaqiijiyay dhaawaca gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Irisow. gudoomiye Tuulax waxa uu sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in uu nool yahay isla markaana uu soo gaaray dhaawac fudud, haddana ay dhaqaatiirta dabiibayaan ayna socdaan siduu hadalka u dhigay baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen. bismillaahir rahmaanir rahiim ma santiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxa qarax oo maanta ka dhacay xaruntii gobolka dad badan oo runtii mas'uuliyiinta gobolka kamid ah wax ku noqday. weli waxaan ku jirnaa dhaawacyadii iyo dadkii higay u gaareen saacadooda. gudoomiyaha gobolka waa dhaawac, wuxuu ku jiraa hadda saaladii khaliilka lagu jiraa. dhowr gudoomiye degmana wax ku noqdeen. qaraxu meesha uu ka dhacayna waa xarunta gobolka howlkii shirarka oo shirkii tufta maanta maalin arbacay ahayd. dhammaan gudoomiyaashii degmooyinka iyo agaasimayaashii gobolka iyo gudoomiyihii gobolka kulli waxaa lagu jiray shirka lagu jiray. marka qadara meeshaas ka dhacday wax ilaahay qoray ahayd. nimankan cadowga ahna mar walba dagar kasta oo ay isku dayayaan waxay rabaan inay si un wax u geystaan oo isqarxiyaan. marka weli ma xaqiijin karno inuu qarax meesha lagu diyaariyey iyo mid isqarxiyey uu yahayba. dib ayaana rabaa inaan kasoo sheegno. waxaan shacabka gobolka Banaadir u baaqayaa inay isdejiyaan. waxaa dhacan ay tahay wax qadara oo ilaahay qoray. gudoomiyihii gobolkana waa uu nool yahay, haddana maaragtay lala tacaalayo caafimaadkiisa. hadda sida ay loo xaqiijiyeen dhakhaatiirtu wareegii koowaad weli waa fiican yahay, ma fahamta. marka qaliinka markuu kasoo baxa kadib aan xaqiijin doonaa sida ay xaaladdu tahay. dhowr gudoomiye degmaha qaraxa ku dhintay ayadana dib baan kasoo xaqiijin doonaa magacyada iyo inta dhaawaca ah iyo inta ay wax noqotay. laakiin waxaan rabaa shacabka inaan ku sheego inay tahay waxaan wax qadara oo ilaahay qoray. qofkii ilaahay u qorana uu dhimanayo. inayna isdejiyaan nimankan anaga mar walba oo nagama leexin doonaan maaragtay howlaha aan qaranka u hayno. amniga halka uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa la wareegay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana la hakiyay gebi ahaanba dhaqdhaqaaqii xarunta maamulka gobolka Banaadir.